wararkan helayna kuwa in cabsi weyn laga qabo maalinta beriya doorashada ka qabsoomi doonta magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisyooni kadib markii la sheegay in booliska Soomaaliyeed shaqaaqa iyo gacan ka hadal ay ka bilaabeen goobaha ay doorashooyinku ka socdaan. booliska ayaa la sheegay in xalay tageen teendhada Afisyooni ee maalinta beriya ay doorashadu ka qabsoomi doonto, sidoo kale in ay tageen subaxnimadii hore ee saaka Villa Hargeysa. booliska Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay u diideen xildhibaanadii dhawaan laga soo doortay Ceelwaq laguna dhaariyay magaalada Muqdisho inay u gudbaan halka ay ka socotay doorashada maanta lagu dooranayay aqalka sare ee Soomaaliya. balse taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Taliye Xijaar ayaa dhammaan wararkan oo dhan beeniyay, isagoo sheegay in boolisku aysan tagin goobaha lagu sheegayo. Taliye Xijaar ayaa yidhi aad ayaan uga xumahay in dad mas'uuliyiin isku sheegaya ay booliska Soomaaliyeed oo ah kuwa nabadda suga inay ku eedeeyaan eedahan aan waxba ka jirin. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo dalka ka maqan ayaa warqad u soo saaray caawa ku sheegay inuu u idmaday amniga iyo sidoo kale dhammaan doorashooyinka geedi socodkooda ciidamadii Afrika ee hore loo oran jiray AMISOM haddana loo yaqaan ATMIS. ra'iisul wasaaraha ayaa yidhi waxaan u idmanay inay amniga doorashooyinka sugaan ciidamada ATMIS ilaa laga gaadhayo tan madaxweynaha. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa yidhi xafiiskayga iyo xafiiska kumeel gaarka doorashooyinka ayaa liistaha ay soo saaraan xildhibaanadu ku xaran doonaan maalinta beriya ay dooran doonaan guddoonka baarlamaanka golihiisa koowaad iyo labaad. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqad soo saaray kaga hor yimaaday dhawaan amarkii uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay, taasoo madaxweynuhu yidhi ma noqon karto hal hay'ad warqad ka soo baxday in lagu fuliyo amniga doorashooyinka iyo sidoo kale amarada uu bixinayo halkaas xafiis. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo bilooyinkii u dambeeyay inuu ka soo horjeedsanayo amarada uu soo saarayo ra'iisul wasaaraha ayaa moodaa hardan siyaasadeed inuu ka dhaxeeyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan sheegay inaysan noqon karin doorashooyinkii ka soo kala baxay Garbaharey iyo sidoo kale magaalada Ceelwaq kuwa nidaamsan ayaa haddana moodaa inuu garab siinayo doorashooyinkii iyo xildhibaanadii dhawaan ka soo baxay magaalada Garbaharey. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo hardan siyaasadeed ka dhaxeeya ayaa amaro kala duwan midba midkooda kale ka soo saaraya xafiisyadooda. lama garanayo wejiga dhabta ay doorashadu yeelan doonto, balse cabsi ayaa jirta maalinta beriyaha iyadoo la dooran doono guddoonka baarlamaanka golaha shacabka qaybihiisa koowaad iyo labaad. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xoojinaya in doorashada xilligeeda ay ku dhamaatay ayaa haddana moodaa hardan siyaasadeed inuu kula jiro ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble. hardanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhaxeeya ayaan la garan doonin goor u dhamaanaya, balse doorashada ayaa sii caga dhiganaysa iyadoo meel dhamaada iyo gabagabaha wejiga la sii galaysa.